السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الكسود هذا مركله إيوه FPL Somali وأنا جوا داير عبد العالي وإذا لسه عدسينا يو حبين كله وأن وقهد لنا فانتسي بريمير ليج لبض كل الله تنيكو لبض كل الله تني لبض صاحب يال وحد نجلس عطان channel كان يوتيوب كا FPL Somali إيوه برهنا بالشذا فيسبوك تويتر كإنستغرام كا وأن كلنا أكونو وهالكاس وأنا وقهد لنا ورك لحير فانتسي بريمير ليج إيوه haddii aad liiga aad ku jiran FPL-ka classic liiga aad ku soo biiri kartid oo linkigiisa uu hoos saaran yahay saaxiibada oo dhan ay u furan yihiin in liigaas ku soo biiraan. Saaxiibayaal maanta waxaan ka hadlaynaa isbuuc ciyaareedka labaad oo game 2 oo noo furmi doona Sabtida soo socota 21 bisha August kulamo muhiim ah ay jiraan. Kulamada si guud haddii aan dul maro kulanka ugu soo horeeya maalinta Sabtida ah 8 saac bar ka hor kama dambaysta suuqa kala iibsiga waa Liverpool iyo Burnley, Aston Villa iyo Newcastle, Crystal Palace iyo Brentford, Leeds United iyo Everton, Manchester City iyo Norwich oo sarki doona, Burnley, Brighton aan iraahdo iyo Watford, Southampton iyo Watford. Maalinta Axadda ahna waxaa ciyaari doona Southampton iyo Manchester United, Wolves iyo Tottenham, Arsenal iyo Chelsea oo kulanka ah ugu weyn toddobaadkan. iyo maalinta Isniinta oo ay ciyaari doonaan kooxaha West Ham iyo Leicester. Inta aanan kulamadaasi gaargaar aan u taabanin waxaan gelaynaa isbedelka suuqa ciyaartoyda ilaa iyo hadda ciyaartoyda qiimahooda hoos u dhaceen iyo kuwa sare ay u kaceen. Kulankii isbuuc ciyaareedka koowaad markuu soo dhamaaday kulamadii waxaas markiiba qiimahooda uu sare u kacay. Bruno Fernandes oo 3 liin dhaliyay oo qiimihiisu uu tagay 12.1. ciyaaryahanka kale ee qiimihiisu kor u kacayna wuxuu ahaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Richarlison oo qiimihiisu ay gaareen 7.6. Pogba oo asna qiimihiisu kor u kacay oo 7.6 ay noqotay iyo Antonio oo maalinta ku xigtay asna qiimihiisu kor u kaceen. Sidoo kale waxaa qiimahooda kor u kaceen ciyaaryahanada kale ah Alonso oo 5.6 tagay iyo Ben Rama oo u ciyaara kooxda West Ham United oo asna 6.1 tagay. isla usbuucaas waxaa qiimahooda hoos u dhaceen ciyaartoyda kale ah Aubameyang oo 9.9 noqday, Pepe oo asna qiimihiisu hoos u dhacay oo gaaray 7.4, Daka oo asna qiimihiisu uu gaaray ama hoos u dhacay oo uu noqday 7.4, Lanzini oo asna West Ham ka tirsan waxa uu qiimihiisu hoos uga dhacay 1 oo meeshaasi waxa uu ku noqday 5.9, Willian asna wuxuu noqday 6.4, Ziyech asna wuxuu noqday 7.4, Lacazette wuxuu noqday 8.4, Bellerin wuxuu noqday 4.9, Fosu wuxuu noqday 5.4, Havertz oo u ciyaara Chelsea wuxuu noqday 8.4, Iheanacho wuxuu noqday 7.4, Minamino asna waxa uu hoos u dhacay 5.5 ayuu noqday qiimihiisa. Konate oo asna Liverpool ka tirsan waxa uu noqday 5.4. ciyaaryahanka lagu magacaabo Martial oo Manchester United u ciyaarana waxa uu noqday 7.9, Van de Beek oo asna Manchester United ka tirsan waxa uu noqday 5.9. ciyaaryahanka ugu magaca weyn ee halkaas ku jira oo qiimihiisu hoos u dhacay waa Harry Kane oo aan kulankii ugu horeeyay ku soo bilaabanin. kulankaana laga yaabo inuu ku soo bilaabin maadaama la sheegayo in suuqa kala iibsiga uu yahay wararka ugu xisaab badan oo kamid yahay oo la rajeynayo inuu ku biiro kooxda Manchester City. saaxiibayaal waxaan gelaynaa marka kulamada aan isleenahay toddobaadkan saaxiibada waxay ka fiirin karaan ciyaaryahanna ay ka qaataan oo ay ku xisaabtamaan. kulanka ugu soo horeeya ee Liverpool iyo Burnley dabcan waxaa kamid ah ciyaaryahanada kooxda Liverpool oo kulamada hadda ugu soo horeeya kulan fiican leh. dhinaca markaan fiirino Burnley iyo Liverpool markay isku horimaadana kulamadii hadda ugu dambeeyay 14 kulan si guud ay u ciyaareen 6 kamid ah waxaa badisay kooxda Liverpool oo afar kulan oo kamid ah 10 kamid ah ay badisay 4 kulan oo kamid ah waxay ku badisay gurigeeda. marka waxaa la dhihi karaa soo laabashada taageerayaasha oo kale ay caawin karto Liverpool oo aan ku ognahay in Anfield ay mar walba xamaasad gaar ay leedahay. marka waxaa kaloo la rajeynayaa in Burnley ay ka soo aarsato oo ayadana Burnley oo xil ciyaareedka la soo dhaafay Liverpool Anfield kaga badisay oo record ka jabisay markaas oo ay ilaashinaysay Liverpool. marka kulankani wuxuu noqon karaa mid ay ciyaaryahanada ay kamid yihiin Van Dijk oo ku soo laabashadiisa ciyaarta ay sidoo kale ay caawinayso daafaca markaan fiirino Trent Alexander-Arnold iyo Mane, Sadio Mane oo asna laga yaabo inuu Manchester dhibco ka keeno uu kamid yahay.
ciyaaryahanada la filayo inay toddobaadkan ay dhibco soo xareeyaan. sidoo kale Mohamed Salah waa mar walba door muhiim ah oo lagu xisaabtami karo. ciyaaraanka kale waa Firmino oo asna meeshaasi dhibco ka keeni karo. kulanka kale ee saaxiibada aan isleeyahay dhibco ay ka qaadan karaan waa kulanka Leeds iyo Everton. kulankaasi waa kulan aan isleeyahay goolal badan ee la iska dhalin doonaa labada dhinacba. dhinaca Leeds oo aan ognahay sida ay u ciyaarto iyo qaab ciyaareedkeeda iyo weerarka ku dhisan, inkastoo kulankii hadda ugu dambeeyay ee 5-1 looga badiyay, haddana ciyaaryahaneeda Bamford oo weerarka ah, weliba ninka lagu magacaabo Rafinha oo hadda qiimihiisu 6.5 yahay, iyo qadka dhexe oo hadda la rajeynayo sidoo kale inuu usoo laabto ciyaaryahan Calvin Phillips in ay Leeds ay saameyn badan ay sameyn doonto. ciyaaraanka kale waa Jack Harrison oo asna aad iyo aad dhinaca weerarkiisana aad u fiican yahay, dhibcaha uu soo xareynaya xilli ciyaareedka la soo dhaafayna aad u fiicnaayeen. kulankan Everton dhinaceeda markaan fiirinana, Everton tababaro cusub ayay samaysatay, ayay yeelatay ninka lagu magacaabo Rafael Benitez. waxaa aad loo amaanay sida shaxdiisa inta marka hore 4-2-3-1 inta kusoo galay, kadibna uu isla markii isbedel ku sameeyey oo shaxdiisa meeshaas uu ka dhigay in isla qaybtii labaad ciyaarta uu bedelay, oo ciyaaryahanada ay kamid yihiin Richarlison, Gray oo hadda ay soo iibsadeen, iyo ciyaaryahanadaas inay goolal ay dhaliyeen, sida hadda Calvert-Lewin oo weerar ah sidoo kale waa laga xisaabtami karaa. marka Richarlison waa doorka ugu weyn ee meeshaas, qiimihiisa sare ayuu u kacay, haddaan soo sheegay 7.6 ayuu tagay. marka ciyaaryahanadaas ayaa looga xisaabtami karaa halkaas. Manchester City iyo Norwich waa kulanka aan dhihi karo maamulayaasha in badan way fiirsan doonaan. ciyaaryahanada Manchester City oo aan inta badan lagu xisaabtami karin, maadaama Pep Guardiola uu yahay nin inta badan isku bedela, haddana waxa ay noqon karaan koox aad looga xisaabtami karo, maadaama kulankii hadda lasoo dhaafayna laga badiyey oo ka badaysay kooxda Tottenham. kulankana garoonkooda ay ku ciyaari doonaan oo Etihad Stadium ay ku ciyaari doonaan. waxaa aad iyo aad u badan in ay Norwich ay dhibco ka qaadan doonaan. waxaa kaloo iyada lafteeda Norwich waxay kamid ahayd xilli ciyaareedkii horyaalka Premier League ugu dambeysay Manchester City ay 3-2 kaga badisay. marka lafteeda inkastoo iska awood yar tahay oo daafaceeda iyo qad dhexe oo muhiim ah laga qaatay, oo Buendia oo kale laga qaatay, xogaa dhaawacyana ay dhinaca daafaca ka haystaan, Norwich City waxaa la suurtagal in goolal badan laga dhaliyo. marka Man City inta aad ka haysato ilaa weerarka ninka hadda hadda lacagta ugu badan ka soo bixiyeen, waxaa la rajeynayaa sidoo kale Kane inay soo qaataan oo wada hadal ay u socdaan, inkastoo uu toddobaadkan uu ka mid ahayn labada dhinacba, Tottenham iyo Manchester City labaduba midna uusan hadda uusan inta badan uusan kusoo bilaaban doonin sida hadda wararka aan ku helayno. inkastoo wax iska bedeli karaan, haddana laakiin ka mid ma ahan ciyaaryahanada Tottenham toddobaadkan ciyaari doonta. marka Manchester City ciyaaryahanada ay kamid yihiin Mahrez, Ferran Torres iyo Gundogan, Grealish iyo De Bruyne oo gadaal ka soo galay kulanka hadda lasoo dhaafay, waxay kamid yihiin ciyaaryahanada dhibcaha ugu badan lagu xisaabtami karo oo inta badanna boosaskooda haysta. Cancelo waa daafaca ugu hadda markii loo fiiriyo dhinaca daafaca waa Diaz iyo Cancelo, labada hadda la isku halayn karo oo la dhihi karo ama oo Pep Guardiola looga tashtaa. laakiin Pep Guardiola aan iska naqaanaa maadaama FPL-ka xilli ciyaareedka la soo dhaafay uu nagu wareeriyay inuu in badan uu ciyaartooyda u bedelo. kulanka kale waa Southampton iyo Manchester United. Southampton daafaceeda Vestergaard ayaa laga iibsaday oo Leicester ayaa ka iibsatay, meeshaasna waxaad moodaa in daafaceeda uu jilicsan yahay. waxaan xasuusanaa ciyaartii Old Trafford ka dhacday xilli ciyaareedka hore in Manchester United ay 9 ay ku badisay, oo ciyaaryahanno ay kamid yihiin Martial, inkastoo Rashford uu maqan yahay, Rashford laftiisa gool ayuu ka dhaliyay. hadda laakiin waxaa qaab ciyaareed fiican ku bilaabay ninka lagu magacaabo Pogba oo la isleeyahay waxa uu noqon karaa mid kamid ah ciyaaryahanada ee toddobaadkan aadka loogu xisaabtami karo, maadaama qaab ciyaareed fiican uu ku bilaabay, ayna suurtagal tahay inuu halkaasi uu niyad ka helo oo horey ugu socdo. ciyaaryahan Bruno Fernandes oo kulankaas 9-ka ahaa asna gool ka dhaliyay, sidoo kalena gool caawiyay, asna waa uu qaab ciyaareed fiican ku bilaabay oo qiimihiisa xataa 12.1 ayuu tagay, oo waxaa laga yaabaa in meeshaasi dhibco uu ka keeno. ciyaaryahan Sancho ayaa laga yaabaa inuu kusoo bilowdo kulankan, sida ay u badan tahay. kulankii hore waxa uu helay wuxuu helay in yaroo daqiiqada ayuu helay, waxaa suurtagal inuu kusoo bilowdo. ciyaaryahanka kale waa daayarka Mason Greenwood oo isna xilli ciyaareedkii horena dadka ka yaabsaday, haddana gool ku bilaabay. marka dhinaca Manchester United daafaca oo kale
Luke Shaw waxa saameynaya muusan yeelan kulanka la soo dhaafay laakiin waxa suuragal ah in kulankan ay awood saas yeeshaan sidoo kale Manchester United marka loo fiiriyo awayga markii loo fiiriyo kulamada ay banaanka soo ciyaarayaan haddii kulankan ay ka badbaadaan in laga badiyo waxay soo bareejeynayaan rikoorkii Arsenal u yaalay ee ahaa in 27 kulan oo banaanka ku soo ciyaartay aan laga badin marka taasna waxa laga yaabaa inay higsadaan oo ay meeshaasi ay dhibco ka soo qaataan waxa xasuusanaa in xilli ciyaareedkii la soo dhaafay aan laga badin kulamadii ay dibadda ku soo ciyaareen kuwa ugu dhawaa ay barbarac galeen kulanka kale waa Wolves iyo Tottenham waxaa iska hor imaanaya Wolves waxa tababarahoodii hore ee ka hor imaanaya marka ciyaaryahanada maamulayaasha inta badan ay ka haysteen Tottenham sida Son oo ugu muhiimsan oo toddobaadkii hadda la soo dhaafay gool soo dhaliyay iyo ciyaaryahanada hadda Bogbuen iyo weerarkooda markaa fiirisid tactical uu ku ciyaarayo macalinkan Nuno Espirito Santo uu ku ciyaarayna ay ku dhisan tahay daafac iyo hal mar oo weerarka gaadmada ah counter attack inkastoo Mourinho uu sidaas ku ciyaari jiray laakiin hadda sidaas way ka bedelan tahay oo Nuno Espirito Santo waxa lagu yaqaanaa ciyaaryahanada orodka badan inuu keensaday ciyaaryahan dhowr ayuu keensaday oo suuq Portugiisku aad ugu soo adeegto marka dhinaca daafaca waxaan uga tashan karnaa Reguilon iyo ninka lagu magacaabo daafaca asna hadda oo Mourinho u bedelay waa Eric Dyer marka dhankaasna waan kaga xisaabtami karnaa kulanka kale maamulayaasha in badan ay fiirinayaan laakiin wax badan aysan ka filaynin laakiin ay aad uga dhursugayaan ninka lagu magacaabo Lukaku waa kulanka Chelsea iyo Arsenal Lukaku qiimihiisa uu ku soo bilowday waa 11.5 maamulayaashana aad ay u iibsadeen hadda inta uu maadaama Harry Kane oo kale la isku hubin laakiin Lukaku waa la isku hubaa bilaabashadiisa maadaama uu fit yahay oo wax dhaawacyo oo hadda uusan qabin horyaalkana uu nin aad u yaqaan u yahay marka ninkaas waa Janis dhinaca Arsenal daafaceeda aad looma amaanin kulanka hadda la soo dhaafay waxa looga faa'iideystay waxa la yiraahdo aerial duelka ama markii difaaca weeraryahanka isla boodaan oo kale in difaacada Arsenal aad u jilicsan yihiin ayaa la ogaaday laakiin dhinaca weerarka marka fiirisid khadka dhexe ciyaaryahan Smith Rowe iyo Saka oo la rajeynaa inuu ku soo bilowdo kulankan waxay ka mid yihiin ciyaaryahanada differentialka ah ee farqiga ah ee maamulayaasha ay wax ka heli karaan kulanka kale waa West Ham iyo Leicester City oo noqon doona sida la filayo kulan ay labada dhinac gool iska dhalin doonaan dhinaca West Ham United ciyaaryahanka horbooda weerarkooda waa Mikel Antonio qiimihiisa hadda sare ayuu u kacay oo hal ayaa ku darsantay 7.6 ayuu tagay dhinaca Leicester City waa weerarkooda waa Vardy ilaa iyo Iheanacho inkastoo kulanka hadda la soo dhaafay bedel lagu keenay laakiin ciyaaryahanada Leicester City khadka dhexe ilaa Tielemans Ndidi ilaa daafaca oo Pereira iyo Amartey iyo Evans ilaa halkaas waxaa maamulayaasha ugu jira ciyaaryahanada sida Maddison oo weerar dhinaca goolalinta aad ugu fiican sidoo kalena marka free-kick-tana qaata marka halkaasi aad baa loo fiirin karaa dhinaca West Ham United ciyaaryahankan ka soo hadlay waa Antonio Benrahma oo qaab ciyaareed fiican ku bilowday intaas ayaa aad looga fiirin karaa sidoo kale dhinaca daafaca Kofal ayaa iyo Cresswell waa labada nin ee dhinaca weerarka aad u caawiya oo gool badan laga helo kulankaasna waxa noqon doona kulan ay maamulayaasha aad iyo aad u fiirsadaan oo ay dhibco uga tashan karaan haddii aan fiirino marka doorashada kabtanka oo maamulayaasha aad uga warsugayaan yaa doorataa yaad siisa maadaama labada nin ee ugu cadcad ama hogaaminaya isbuuc ciyaareedkii la soo dhaafay hogaaminayay Mohamed Salah oo 2.2 milyan ay kabtan saarteen iyo Fernandes oo ay saarteen ilaa 1 milyan ku dhawaad ay saarteen oo labadooda way abaalmariyeen marka maamulayaasha waxay ka warsugayaan ama ay aad ugu fiirsanayaan kee doorata marka ani ahaan waxa isleeyahay Salah ayaa la dhihi karaa doorashadiisa ay aad iyo aad ugu furan tahay marka loo fiiriyo kooxda ka hor imaanay Burnley inkastoo hal gool ku leeyahay laakiin maadaama kooxda Liverpool ay garoonkooda ku ciyaarayaan sidoo kalena aan hore u sheegay in Liverpool ay Arsenal ay rajeynayso ayna ka hor imaanayso koox ayna ku ciyaarayso gurigeeda oo taageerayaasha iyo wixii oo dhan ay isbedel ku sameeyeen ba hadda waxa xasuusanaa kulamada hadda isbuuc ciyaareed koowaad in taageerayaasha ay saameyn badan ku yeesheen marka meeshaas Salah waxa uu noqon karaa doorka ugu weyn ee kabtanka la saaran karo
Fernandes asaga waa doorka labaad ee kabtanka la saaran karo wuxuu ku hor imaanaya kooxda Southampton oo daafacyada aad u jilicsan yihiin sidoo kalena waxay ku ciyaarayaan koox markii loo fiiriyo Manchester United oo hadda difaacanaysa taariikhdeeda dhinaca kulamada dibadda ay ku sii ciyaarayso markaas dhanka ka fiirisid waxaa muuqata in Fernandes uu yahay doorka labaad haddii marka aad ka fikiraysid inaad yani kabtan farqi aad samaysid ciyaaryahan Mahrez waxa uu ka mid yahay kabtanada la isku haleyn karo ama la isku dayi karo dhinaca Manchester City oo ka hor imaanaysa Norwich De Bruyne laftiisa waa la qaadan karaa oo asna waxa uu ka hor imaanaya Norwich oo De Bruyne marka hadda kulanka hadda la soo dhaafay uu soo galay ilaa 3 wuxuu sameeyay oo jaanisyo oo gool looga dhalin karo marka ninkaasna waxa uu noqon karaa mid kamid ah ragga maamulayaasha ay wax ka qaadan karaan oo lagu tashan karo sidoo kale haddii aad rabtid inaad kabtan farqi aad samaysid ciyaaryahanka lagu magacaabo Pogba waa asna waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada maamulayaasha ay qaadan karaan inkastoo hadda uu kuliyay seasonka uu xilli ciyaareedka uu bilow yahay haddana haddii maamulayaasha oo dhan ay wada qaateen Fernandes Salah iyo Mahrez adiga waxa noqon kartaa mid kamid ah ciyaaryahanada farqiga nin qaatay oo waxa laga yaabaa inaad ugu guuleysato nin aad liiga aad ku wada ciyaaraysan heer to heerka marka dhankaasna ka fiirin kartaa marka saaxiibayaal intaas ayaan ku soo koobayaa maanta falanqeynteeni isbuuc ciyaareedka labaad ka hortii waxaan rabaa inaan xasuusiyo inaad ku soo biirtaan channelka YouTube-ka sidoo kale saaxiibada aad la wadaagtaan oo aad Facebookka Twitterka Instagramka aad naga soo follow gareysaan linkiyada oo dhan halkan ay ku qoran yihiin sidoo kale page-ka markaad tagto Facebookka wax walbo linkiga xataa liiga waa u saaran yahay marka nala socda aad iyo mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.